الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قبل ودنكذي الحجر dhagaxa ayuu dhunkaday waa الحجر الأسود faqaala waxa uhi إنii anigu أclamu waxaan ogahay أnaka adigu xajarun dhagax inaad tahay laa taduru aan waxba dhibin walaa tanfac waxna aan tarin walowlaa أnii ra'aytu rasuula الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay inaan arkayo haddii lalaaya yuqabiluka isagoo dhunkanaya maa qabaltuka kuma dhunkadeen. muttafaqun calayh. xadiidkan bukhaari iyo muslim isku waafaqayaan wuxuu tilmaamaya dhagaxa in la dhunkadaa inuu sunno yahay, nabigana in lagaga dayanayo calayhi salaatu wasalaam. waxaana culimmadu ka faa'iidaysteen siday saxaabadu u weynaysiinayeen nabiga sunnadiisa calayhi salaatu wasalaam. yacni sababta dhagaxa loo dhunkanaya qalbigu habadiidu oo hala saluugsanaado maadaama nabiga ay ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam waa in la dhunkada wey. waxaanu ogsoonnahay saxaabadu waxay soo gaadheen zamankii jaahiliyada ayay soo gaadheen cumar iyo raggii la midka ah. marka dhagax in la dhunkado ama waxa weeye la weynaysiiyo iyo waxyaabaha la midka ah calaamado jaahiliga iyo gaalnimadii lagu yaqaanay bay ahayd. markay sunnadan la imanayeen waxoogaa culaysa bay ku haysa. sidaa awgeed buu cumar bnu khaaab tilmaamaya maadaama nabiga ay ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam sharcina ay tahay in waxa weeye sidaa loo samaynayo. inankiisa cabdulaahi bni cumar oo isaguna lagu yaqaanay sunnada inuu aad u weynaysiiyo, marka saxaabada su'aalaha la weydiiyo ee saxaabada kale ay tafsiil geliyaan sida markii xadiiskii saxiixaynka ku yimi cabdulaahi bni cumar iyo jaabir bnu cabdillaah ayaa labadoodaba hal mas'ala la wada weydiiyey. nin muctamira oo cumrada isagoo ku guda sugan inta aanu sacyi bayna asafa walmarwa la iman galma sameeyey. dabadeedna cabdulaahi bni cumar wuxuu ku soo celceliyo ku jawaabay nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaasuu sameeyey. yani ficilkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo keligii ku jawaabay. jaabir bnu cabdilaahina wuxuu ku jawaabay jawaabtii fuqahada ayuu ku jawaabay. yani xukunka masaladu waxay lahayd. marka ibnu cumar markii masaladan la weydiiyey ee la yidhi haddii aanu kacbada ku tawaafno ma dhunkanayna dhagaxa ma dhunkanayna, wuxuu ku jawaabay ra'aytu nabiya sal allahu alayhi wasalam yastalimuhu wayuqabiluh. jawaabtiisu waxay noqotay nabigaan arkay isagoo qabsanaya oo dhunkanaya. waxaa saa'ilkii uu ku celiyey ara'ayta in zuximtu aw gulibtu, bal waxaad ii sheegtaa haddii la igaga xoog bato oo cidhiidhi aan dareemo haddii aan doono inaan dhunkado. dabeedna waxa uhi ijcal ara'ayta bilyaman, yani su-aasha noocaasa yaman kaga kaalay buui. ra'aytu nabiya sal allahu alayhi wasalam yastalimuhu wayuqabiluh. marka xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam in sideeda loo qaato waa haddii qofku aanu dadka ku dhibayn ama naftiisa aanu ku dhibayn oo cidhiidhi aanu gelin sida hadda dhacda inuu ku dadaalo. waa sunno aad iyo aad u muhiima. qaababka axkaamteedana axaadiista dambe ay noo sii tilmaami doonta insha allahu tacaala. وعن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال waxa uhi rأيtu رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay baan arkay yطuufu isagoo ku طawaafaya bilbeyti kacbada wayastalimu isagoo salaaxaya oo qabanaya ama taabanaya الrukna xajar الأswadka bimixjanin bakoorad isagoo ku taabanayo ku qabanaya. mixjan waa usha madaxa ka laaban bay yidhaahdeen, casan munxaniyat aras. marka waa bakooradan aynu isticmaalno wey. bimixjanin bakoorad buu nabigu ku taabanayay macahu isaga maciisa ahaatay wayuqabilu waa dhunkanayay
almixjana ushaasna waa dhunkanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam rawaahu muslim. saxaabiga abi tufayl la yidhaahdo waa caamir bnu waathilat allaythi, waana saxaabigii ugu dambeeyey xagga dhimashada saxaabada. sanadku markuu ahaa 110 ayuu dhintay, sida loo badinayo 100 waa layidhi. waana saxaabigii ugu dambeeyey ee waxa weeye maka ku dhintay, xilli ahaana saxaabada ugu dambeeyey. waakhiru الصحaabi bاtifaaqi mowtan abu طufayli wahuwa aakhiru bimakati waqiila fiiha jaabiru. yacni inuu saxaabada dhimashadeeda ugu dambeeyey waa la isku waafaqsan yahi, laakiin maka inuu ugu dambeeyey ma isagaa mise waa jaabir bnu cabdilah baa la ysku haya. xadiidku inoo soo warinaya waxay tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam qaababka uu u isticmaalay xajarul aswadka inay qaabab kala duwan ahayd. culimmaduna waxay yidhahdeen axaadiista haddii la eego 3 qaab wey, waa xajarul aswadka haddii laga hadlayo. qaabka koowaad waa in la gaadho oo waxa weeye si toosa loo dhunkado oo afka lagu dhunkado, cod ha yeelata ama yaana yeelan. culimmada qaar baana yaanay cod yeelan, bishmaha la saaraya, laakiin wixii dhunkasho la yidhaahdo waxa weeye ayaa lagu samaynaya, waa la dhunkanaya. dhunkashadaasi cod ha yeelata ama yaana yeelan, waxba la kala qaadi maayo see saxiixa. qaabka labaad waxa uu yahay in la gaari waayo laakiin shay lagu gaadho, waata xadiiskani tilmaamayo. waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam awr buu fuushanaa awaafkii awaafu lifaada, sida axaadiista kale cadaynayso. awr buu fuushanaa, dad badanna dhinacyaday ka socdeen, marka awrka inuu u leexiyo xagga ajarul aswadka oo gacanta uu la tiigsado nabiga waa ku adkayd calayhi salaatu wasalaam. laakiin wuxuu ku gaadhay ushiisa ayuu ku gaadhay. ushii markuu ku gaadhayna, maadaama ushii ay taabatay, ushii waa la dhunkanaya iyo wixii lagu gaadhay. waa qaybta labaad wey, in gacantaadu gaadhi weydo, afkaaguna gaadhi waayo, laakiin shay kale aad ku gaadho, ul iyo wixii la mida, shaygaasi haddii uu taabto waxa weeye isagana waa la dhunkanaya. waa qaab labaad wey, ciddii ay u fududaato. marba waxaa laga yaabaa in qof iyo laba ay kaa xigaan oo ay kugu adkaato, oo haddaad sidata caagada biyaha ah intaasi ay kaaga dhiman tahay, waana cidhiidhi oo gacantu kuu gaadhi weyda inaad ku gaadho waxa weeye caagada aad ku gaadho, dabadeedna caagadii baad dhunkanaysa. haddaad gacanta la gaadhana gacantii baad dhunkanaysa. haddaad afka la gaadhana waa xaaladii koowaad oo iyadu ugu horeysay wey. xaaladda saddexaad inaad gaadhiba weydo, afkaagu gaadhi maayo, gacantaaduna gaadhi mayso, shay adiga aad sidataana ma gaadhayo. xaaladda noocaasee saddexaad waa la tilmaamaya, meel fog baa laga salaamaya, gacantaana lagu salaamaya oo loo taagaya. haddii gacanta loo taagana, maadaama gacantu aanay taaban, la dhunkan maayo. iyadana waxaa u daliila xadiidkii bukhaari ku yimi kulamaa ataa cala arukni ashaara ilayhi bishayin fii yadihi wakabar. markastoo nabigu uu soo gaadho rukniga, uu soo gaadho gacantiisa ama shayga uu gacanta ku sita ayuu ku tilmaamayay. allahu akbarna waa odhanaya, waana ka soconaya. xaaladda noocaasa la dhunkan maayo. dadku waxay sameeyaan sida badan, iyagoo aada uga fog ayay meel fog inta ay ka salaamaan oo gacanta uga taagaan ayay gacantii dhunkadaan. laakiin dhunkashadu waa in la taabto oo la gaadho, ama shay lagu gaadho, shaygaa la dhunkado unbaa dhunkashadu taallaa. ama haddii meel fog laga salaamayo, gacanta in loo taagaa ku filan oo la tilmaamo, kadibna waxa weeye laga socdo. saddexdaa sunne ayuu xajarul aswadku leeyahay. xadiidkii cumar aynu hadda soo maraynay xaalad buu tilmaamay, waa xaaladii la gaadhayay. xadiidkanna xaalad labaad buu tilmaamay. xadiidka saddexaadna wuxuu tilmaamayaa haddii laga fog yahay oo xaaladda la dhunkan maayo. amaa rukniga yamaaniga ah, isagu hal xaalo wey. haddii la gaadho, qacmaha lagu salaaxaya, lana dhunkan maayo. haddii laga fog yahayna la tilmaami maayo oo waxa weeye meel fog gacanta looga ishaari maayo. isaga waa in la gaadhaa, qacmahana lagu salaaxaa oo aan la dhunkan.
وعن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال وxau طاف رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulkii ilaahay waa طawaafi mudabcan xaaluu yahay mid ku jeeni qaaran biburdin go أhdra cagaara rawaahu الخمسة إلا النسائي وصaxaxahu التirmidي. xadiidka waxaa soo saaraya culimada la tilmaamay waxaan nasaa-i ka ahayn, sanadkiisana waxaa ku sugan oo soo warinaya ibnu jurayj can ibni yacla can abiih yacla bni umaya. saxaabigu waa yacla bnu umaya, inankiisa ayaa ka warinaya oo taabiciya, inankana waxaa ka warinaya ibnu jurayj. ibnu jurayj wuxuu caan ku yahay tadliiska ayuu caan ku yahay, xadiidkanna tadliis buu ku sameeyey oo ibnu jurayj xadiidkan kama maqal ibnu yacla ee waxaa u dhaxeeya sida imaamu tirmidi iyo imaamu axmed ay caddeeyeen cabdulxamiid ibnu jacfar nin la yidhaahdo. cabdulxamiid ibnu jacfarna waa nin iqa ah oo lagu kalsoonye, marka haddii mushkiladii la ogaaday, cidda meesha ka maqanna la ogaaday ee xadiidka uu ka tadliisiyey, waxaynu leenahay xadiidku waa saxiix wey. culimo badanna waa saxiixiyeen. imaamu tirmidi waxa uu i waa xasanun saxiix, nawowi iyo albanina waa saxiixiyeen. xadiidku waa sugay. xadiidku hal masalo inoo tilmaamay. masaladaasi waxay tahay maryaha la xidhanayo xajka iyo cumrada iyo xilliga la tawaafayo ee qofku uu xarman yahay xaj ama cumro, xagga midabka waxba la eegi maayo. maryahaasi waa inay yihiin hadduu qofku muxrim yahay kuwa aan xubin ku goonayn, amaa midabkoodu waxa weeye nooc allaale noocuu xidho, casaan iyo madow iyo cagaar iyo kuwa la midka ah way u bannaan tahay sida xadiidkani tilmaamayo. waana masale hadal aanu ku sugnayn oo midabku kama mid aha waxyaabaha lagu xidhayo, midabka la xidhanaya xaj iyo cumro kama mid aha. masalada noocaasina wax khilaafi waxa weeye kuma sugnaan. mudabican waxaynu kaloo ka faa'iidaysanaynaa haddii tawaafku yahay tawaafu lquduum ama tawaafu lcumra uu yahay in waxa weeye la sameeyo idibaac la sameeyo. idibaacuna waa go'a in la kilkilaysto, kilkilada midig in la geliyo, go'a bartankiisa in kilkilada midig la mariyo ayaa idibaac la yidhaahdaa. ujeeddaduna waxay ahayd in waxa weeye awoodda iyo caduda gaalada la tuso, waxa weeye muruqa midig iyo caduda midig in la faydo si gaaladu ay u arkaan waxa weeye muslimiinta awoodooda. xikmada labaad waxay tahay qofku haddii uu waxa weeye qacantu ay bannaanka u taallo, waxa u fudud inuu degdega xagga socodka ayaa u fudud. haddii kala go'a laga yaaba, waayo qacmahan sida xorriyadda u shaqaynaya socodka ayay qofka u fududaynaysa. marka haddii qacanta dibadda loo saaro ga'una uu hoosta maro, iyadana waxaa u fududaanaya bay yidhaahdeen inuu degdego. xikmadahaas ayaa looga jeeday. waxaa ku saabsan midabkana nabigu wuxuu xidhnaa calayhi salaatu wasalaam sida xadiidkan lagu tilmaamay, go cagaara ayuu xidhnaa. waxaanaynu ku soo marnay kitaabu ljanaa'iz xagga labiska marka laga hadlayo, kafantana laga hadlayo, waxa weeye ilbasuu min iyaabikum lbayaad fainaha khayru iyaabikum wakafinuu fiiha mawtaakum. waataynu xadiidkaas soo maraynay. yani wax la xidha waxa ugu wanaagsan cadaanka ayaa ugu wanaagsan. waxaana la xidhaa hadda sida badan oo ixraamka laga sameeya cadaan baa laga sameeya. xujayda waa aragteen dhammaantood cadaan bay xidhayin, laakiin halkan waxaa lagu faa'iidaynaya cadaankaasi inaanu waajib ahayn. haddii midab kale la xidho inay bannaan tahay baa laga faa'iidaysanaya. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال waxa ui kaana waa aha nabigu calayhi الصلاaة وaسلام kaana waa aha yuhilu mid waxa weeye tahliishada minaa anaga xagga yaga saxaabadii weeye almuhilu kii tahliilsanayay ee laa ilaaha ila allah odhanay, falaa yunkaru calayh laguma qabsanay, wayukabiru waa takbiiranay minaa anaga xagga yaga xaaluu ka mid yahay almukabiru kii takbiiranayay, falaa yunkaru calayh laguma inkirayn oo laguma qabsanayn. muttafaqun calayh. xadiidkani sabab buu lahaa, sababtiisuna waxay tahay sida bukhaari iyo muslim ku timi
taabiciga loo yaqaana muxamed bnu abi bakrin athaqafi ayaa wuxuu weydiiyey anas bnu malik kayfa kuntum tasnacuuna fi hada alyawmi maca rasuuli illahi sal allahu alayhi wasalam maalintan oo kale markaad nabiga la socoteen calayhi salaatu wasalaam maxaad samaynayseen maalinta la sheegayaana waa markaa carafo lagu kallahayo minana laga baxayo waataynu hore u soo marnay maalinka sagaalaad subaxa sagaalaad ee cadceedu markay soo baxdo in xagga carafo loo dhaqaaqayo socodkaa la soconay min minan ilaa carafaat subaxaas sidee baa la samaynayay baa la weydiiyey anas bnu malik dabeedna waxa uu sheegay saxaabadu inay kala duwanaayeen waxaa ka mid ahaa mid talbiyadaysanaya talbiyada lama sheegin waayo iyadu waa asal wey in la talbiyadaysto iyadu waa asalkii xilligii la joojinayayna lama gaadhin wayno soo socota marka waa xilliyadii talbiyada lala imanayay iyada waa ka gaabiyey oo nabigu calayhi salaatu wasalaam lazima nabiyu talbiyatahu baa meesha taalla nabigu talbiyadiisuu laazimayay laakiin saxaabada waxaa ka mid ahaa kuwo lahaa laa ilaaha ila allah waxaa ka mid ahaa kuwo ku celcelinaya allahu akbar qofna laguma qabsanayn yacni intuuba waa sunne talbiyana waa lala imanaya xilliga noocaas xuska kalena waa lala imanaya hadday tahay laa ilaaha ila allah iyo allahu akbar iyo xusaska kale la midka ah waa la isku badbedelaya qofkuna alle subxaanahu watacaala inuu weynaysiiyo uu xuso ayaa waxa weeye loo jideeyey falaa yunkaru calayh yacni saxaabadu kumay qabsanayn sidaasaa riwaayaadku ay u badan yihiin oo loo dabdiyey yacni laa yunkaru iyo laa yunkiru waa kala labago haddii macluum laga dhigo waa nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin xadiidka waxaa looga jeedaa saxaabada dhexdooda yacni saxaabadu kumay qabsanayn waayo dadku waa badnaayeen waxaa laga yaabaa dad badan nabigu inaanu maqlayn calayhi salaatu wasalaam iyagu iskumay qabsanayn halkaana waxaa ku sugan saxaabadu xataa nabiga calayhi salaatu wasalaam oo la jooga wixii khaldan inay isku qabsanayeen inkaarulmunkar inay samaynayeen waata laga daliishanayo maadaama saxaabadii aanay isku qabsan shaygaasi inuu yahay shay ay isla qaateen oo wax hadali aanu ku sugnayn sidaasaa loo daliishanaya xadiidka وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وxau بعثني النبي صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uu ii saaray في الثقل dadkii cuslaa أو ama qaala waxa uu hi في الضacafati dadkii taagta darnaa min jamcin meesha musdalifa la yidhaahdo inaanu ka dhaqaaqno bilaylin habeen yani socodka inaanu ka bilowno متفق عليه athaqal waxaa asal ahaan la yidhaahdaa waa alaabta qofka socdaalka ay uu sito wataxmilu ahqaalakum ila baladin lam takunuu baaligihi ila bishiqi lanfus aqal waxaa la yidhaahdaa qofku alaabta uu sito ee cuslaynaysa laakiin hadda waxaa looga jeedaa qofkii la cusleeyey dadkii baa looga jeeda lafdiga kalena waa inoo sii cadaynayaa aw fi dacafati yani dadkii taagda darnaa hadday tahay ciyaalkii haddii ay tahay dumarkii jilicsanaa dadkii waayeelkaa dadkii xanuunsanayay intuba waa soo gudagelaya وعن caaئiشhaةa رضي الله تعالى عنها قالت waxay tihi istaadanat way weydiisatay sawdة sawda rasuul الlahi salى الlaه عaليه وسلم rasuulkii alla ayay fasax weydiisatay laylaة الmusdلفة habeenkii musdalifa an tadfaca inay dhaqaaqdo qablahu nabiga hortii inay dhaqaaqdo wa kaanat way ahay habtatan tacni waxay uga jeedaa haqiilatan mid culus bay ahay habitatan iyo habtatan labaduba waa ku bannaan yihin bacda in la sukuuniyo iyo in la hoos dhigo laba luqa wey wa kaanat way ahay habtatan yani mid culus bay ahay faadina laha nabigu waa u fasaxay calayhi salaau wasalaam muttafaqun calayh habita waxaa la yidhaahdaa qofku markuu dhulka ku dhago habita bilardi ay tashabbaha biha dhulka ayuu ku dhagay ama uu qabsaday qofkuna markuu culus yahay ee uu gaabinayo wuxuu u ekaanayaa sidii qof dhulka haysta ama dhulku uu haysto oo kale
socodkiisu waa cuslaanaya. marka xaalku wuxuu u egyahay sidii dhulka inay haystaan oo kale sida uu soconayo. labadan xadiid ee labada Bukhaari iyo Muslim ay isku waafaqayaan hal mas'ala inoo tilmaamaya. xadiidkii Jaabir ibn Abdullah ee lagu faahfaahiyay xajka nabiga calayhi salaatu wasalaam waataynu soo marnay. nabigu calayhi salaatu wasalaam Musdalifa markuu u hoyday salaadii subaxna uu ku tukaday, allana waxa weeye mashcarul xaraamka agtiisa uu ku xusay xilliga uu ka dhaqaaqay waatuu inoo cadeeyay Jaabir ibn Abdullah xataa asfara jiddan, ilaa waagu uu ka cadaaday oo bimacnaa ay ka harsanayd oo keliya cadceedu inay soo baxdo. intaanay cadceedu soo bixin ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka soo dhaqaajiyey, laakiin waagu uu ka cadaaday oo iftiin ay ka noqotay oo maalinku uu ka soo galay. sida nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waa sidaas. asalkuna waxa uu yahay litakhuduu canii manaasikakum. Musdalifa haddii laga soo dhaqaaqayo oo habeenkii loo hoyday waa in laga dhaqaaqaa xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. xaadiistani waxay inoo tilmaamaysa dadka la cusleeyey oo sawda qof culus bay ah, wa kaanat jasiima sida saxiixaynka ku timi, kaanat habita qof xoog leh oo culays labay ahayd. waxaa la mid ah xadiidka ibnu Cabbaas ee ka horeeya oo isagana lagu tilmaamay dadkii cuslaa. dadka noocaasa waxaa loo ogolyahay inay habeenka qaybtiisa dambe ay sii baxaan, 2 habeennimo 3 habeennimo salaada subax horteed habeenka qaybtiisa dambe inay sii baxaan oo xagga Mina ay u sii dhowaadaan ayaa waxa weeye loo fasaxaya si dhagax tuurashadu ay ugu fududaato. waayo dadka haddii ay la dhaqaaqaan sida nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam hadday la sameeyaan waxa laga yaabaa dhagax tuurku inuu culays iyo dhib uu ku noqdo. axaadiista qaarna waxa ku yimi waa xadiiu sawda, qisadan sawda qabla xatmati nnaas, dadka waxa weeye jajabintoodu intaanay iman. waayo marka cidhiidhi yimaado waa la isjiidhaa, inta aan la isjiidhin inay waxa weeye sii dhaqaaqaan buu nabigu u fasaxay calayhi salaatu wasalaam. labada xadiid masaladaas ay inoo tilmaamayaan wax hadalayna kuma sugnaa. dadka ducafada ah inay waxa weeye hore usii dhaqaaqaan waa mid u bannaan. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموها تورننا الجمرة dhagax حتى تطلع الشمس إلا قرحdu ay ka soo baxdo. الجمرة أي مكان الجمرة baa looga jeeda, يعني لا ترموا ha tuurinina الجمرة meeshii wax lagu tuurayay waxa ku tuurina xataa taطluca الشhamsu ilaa ay ka soo baxdo cadceedu ay ka soo baxdo. rawaahu الخمسة إلا النسائي وفيhi waxa ku guda sugan inqiطaac, sanadkiisa inqiطaac baa ku sugan. waynu cadayn doonaa in sha allahu tacaala. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت waxay tihi أrsل النبي صلى الله عليه وسلم nabigu waa diray بأmi سلمة xaaskiisa أmi سلمة laylaة النحri habeenkii laylaة النaxriga waa habeenkii ciidda wey. faramat way tuuratay aljamrata dhagixii waa jamraة الcaqبة qabla الfajri, salaada subax horteed ayay tuuratay ama waagu inta aanu baryin. uma madat way socotay faafaadat طawaafu lifaadihi bay samaysay, yani طaafat طawaaf اlifaada. faafaada الnabiyu sal اllahu alayh wasalam waataynu hore usoo marnay. rawaahu abu dawuud waisnaaduhu cala sharطi muslim. labadan xadii waxay tilmaamayaan, labadii xadiie hadda aynu ka soo baxnay waxay inoo tilmaameen musdalifa. waayo marka musdalifa la yimaado carafa laga yimi oo maalintii 9aad ayaa soo dhammaatay. habeenkii 10aad waxaa loo soo hoyanayay musdalifa. habeenkaa 10aad waxaa la iska doonayay mabiit musdalifa in loo hoydo, subaxeedana lagu ducaysto, kadibna intaanay cadceedu soo bixin laga dhaqaajiyo. waxaana loo soo dhaqaajinayaa xagga Mina. horaynu u sheegnay makaan laga dhaqaajiyey, Mina ayaa la yimi. Mina waxa ku xigta musdalifa oo waa la dhaafaya subaxa 9aadka
oo waxa la aadaya Carafa maalinkii 9aad iyo habeenkii 10aad wax kamida ayaa la joogay habeenkii 10aad baa waxa la imanaya Musdalifa ilaa subaxa ayaa la joogay subaxii 10aad waa yawmu Eid al-Adha maalinta noocaas laga soo dhaqaaqaya Musdalifa waxa dib loogu soo noqonaya Mina waxa loo soo socdaana waa dhagax tuurashadii culimadu waxay yiraahdeen tahiyatu Mina yawm an-nahr ar-ramy baydaadi maalinka 10aad amalka koowaad ee Mina laga qabanaya ee nabigu ka sameeyay calayhi salaatu wasalaam waa in lagu bilaabaa dhagax tuurasho waa in lagu bilaabaa hatta teendooyinkii Mina laga deganaa la aadi maayo hadii Musdalifa laga yimaado toos waxa loo aadaya sida sunnadu ay tahay dhagax tuurashadii baa la aadaya waa la tuuranaya kadib baa guriyaha lagu noqonaya sida nabigu sameeyay calayhi salaatu wasalaam idan labadan xadiis waxay noo tilmaamayaan dhagax tuurashada xilli ma la sameeynaya masaladaas ay la xiriirtaa labada xadiis intaynaan masaladooda u galin waxa inooga muuqatay inay iskhilaafsan yihiin xadiiska koowaad wuxuu tilmaamayaa ilaa cadceedu ay ka soo baxdo inaan la isu ogolayn dhagaxa in la tuurto Abdullah ibn Abbas oo xadiiska soo warinaya waa kii xadiiskii hore inoo soo warinayay eelaaha waxaan la socday dadka ducafada abaan la socday oo aan wadi qofka la socda dadka ducafada ahna la xukum buuya cidii wadayna waa la xukum marka waxa ka soo baxaya inaan loo ogolayn ilaa cadceedu ay soo baxdo dhagax tuurasho in la sameeyo xadiiskaasi macnahaas uu tilmaamay xadiiska labaadna waa kullid oo wuxuu tilmaamaya فرمت الجمرة قبل الفجر واغو أنبريين اسكابا داف العدو إني صبحضو حتى واغيو أنبريين أي النبي عليه الصلاة والسلام أفصحي أم السلامة إني تورته سيدا أي سميسي وحان النبي أفصحن السمين ميسو لبدا حديث بهذا البضن باكو سوكا علماء بضنين الله بضن وضعيفيه حديث عبد الله بن عباس أسانيد كلا دوان بولي سند كواد حافظك تلمامي أولي فيه انقطاع حديث واحد صورنا يا الحسن العراني عن عبد الله بن عباس الحسن العراني وان ثقة لكن ابن عباس وحبك من مقال انقطاع هلكسوك سوغين انت انتاء قالين حافظك وحاول رواه الخمسة إلا النسائي نسائي إنه صار يابو وحوي ووهمي وي حديث النسائي وكسوغي حافظ كلفتيس فتح الباري يمركو حديث كعزوين ايه وحاول أخرجه النسائي والشيء لكن هل كان وهمي بوغتي مركا وحا لنا رواه الخمسة شنتو وكلنته النسائي وحوي لغسو ريبي ماي حديث النسائي وكسوغي تسوى تنبيه طلبات سندك وقوع عن سنة حديث كان يقوليه والحسن العراني عن ابن عباس حسن ابن عباس وحبك من مقال انقطاع باك السجن وصدا يتلمام يا إمام أحمد يحيى بن معين أبو حاتم الرازي أئمة العلل سيت المامي سند كاسوا منقطع سند لباد بولي وحصورين يا نكلو يقانو عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي بوعانكويه عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن عبد الله بن عباس سند كاسنا علوين باكو السجن المسعودي نكلو يقانو وانين اختلاطو كردعي حفظي سنة لغا هضلي هذا البانيكا كسوغان المسعودي لو يقانو إلا ضلبات وحيتها الحكم بن عتيبة وانين ثقاء وإمامة ولغو كالسونية لكن waxaa lagu sheegay tadliis baa lagu sheegay waa nin mudallisa talabaad miqsam tabiiciga miqsam la yiraahdo shan xadiis buu ka maqlay sida shucba uu tilmaamay shucba wuxuu kamid ahaa xakam ardaydiisii ugu waaweyneed buu kamid ahaa shucba waa ardaydii xakam weey xadiiskiisana xogogaal buu u yahay
waxa uu miqsam oo xakam sheekh u sii ah 5 xadiithun buu si toos ah uga maqlay, yacni inta kale kama maqal. hadduu ina moodsiiyo inuu ka maqlayna tadliis buu ku sameeyey weeye macnuhu, oo xadiidkani uu ka mid yahay. 5 uu ka maqlayna kani kama mid ah, marka wuxuu ka mid noqonayaa 5 aanu ka maqal ee tadliiska uu ku sameeyey bay ka mid noqonaysa. cilada labaadna waa ku sugan tahay. sida awgeed imaamu albukhaari waxa uu leeyahay laa nadri alxakamu samica min miqsamin hada alxadiid am la, ma ogin, yani ma hubno xakam waa xakam ibnu cutayba xadiidkan shiikhiisa miqsam inuu ka maqlay iyo inaanu ka maqlin ma kala ogin. yani bukhaari markuu leeyahay ma kala ogin waa cilayn uu cilaynayo, waa daciifin uu daciifinayo, xadiidkana waa daciifiyey. asaaniidda xadiidku uu leeyahay waxaa ka mida sanadka kale abi daawuud iyo nasaa'i ay soo saarayaan ee uu soo warinaya ninka loo yaqaano xabiib ibnu abi thaabit can cataa can cabdillaahi bni cabbaas. cataa ibnu abi rabax waa imaam jaliila wey. xabiib ibnu abi thaabitna waa nin lagu kalsoon yahay, laakiin wuxuu caan ku ahaa tadliiska. markay kutub almaraasiil watadliis ay ka hadlayaan waxay yidhaahdaan mukthirun min altadliis mashhuurun min bitadliisi walirsaal. wuxuu badiyaa tadliiska inuu wax qariyo, wuxuu badiyaa cidaan wax ka maqal inuu yidhaahdo waxbaan ka maqlay, yacni ina moodsiiyo maaha inuu sheeganayo oo xadaanaa wuu odhanayo, laakiin can iyo qaala iyo wax la mida ayuu isticmaalaya. markaa sanadkaasna cilalkaasaa ku sugan. asaanidda markaynu isku soo celcelinno dhammaantood xadiidka cabdulaahi ibnu cabaas weeya cilalkaasaa ku sugan, laakiin marka laysu geeyo ma laysku xoojinaya? bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen ha, waa laysku xoojinaya. imaamu tirmidi xasan buu ka dhigay, xaafidku uu taxsiiniyo xasan buu ku tilmaamay, albani laftiisu uu isku quweeyey oo waxa weeye xadiidka waa xoojiyey, asaaniiddaasi inay isxoojinayso. laakiin culimo badan oo kale waxay yidhaahdeen xadiidku waa daciif oo ma xoog badna. xadiidkaasi waa kaas, hadalkaasaa ku sugan, xaalkiisuna waa halkaas. xadiidka labaad ee ay soo warinaysa caaisha radi allahu tacaala canha, isaguna haddaanu ka daciifsanayn ma dhaamo. isagana cilada ku sugani waxay tahay sanadkiisa waxaa soo warinaya addaxaaku bnu cuثmaan can hishaam bni curwa can abiihi can caaishata radi allahu canha. daxaaku bnu cuثmaan xifdigiisa ayaa laga hadlay, waa saduuqun sayi lxifdi wey, xadiikiisuna muslim buu ku sugan yahi. hishaam bnu curwata can abiihi can caaishana waa min asaxi asaniid, asaaniidda kuwa ugu saxiixsan buu ka mid yahi, waana sanad bukhaariyo muslim ay cuskadaan oo ictimaadaan. laakiin hishaam bnu curwata ninka ka warinaya waa ninka loo yaqaano addaxaaku bnu cuثmaan. ninka noocaasa xifdigiisa laga hadlay, iyadoo xifdigiisa laga hadlay baa haddana imaamu muslim uu xadiidkiisa uu soo saaray, bal uu ictimaaday sanadkan addaxaaku bnu cuثmaan can hishaam bni curwa can abiihi can caaisha. muslim axaadiid kale ayuu ku soo saaray. sidaa awgeed baa culimo badani waxay yidhaahdeen xadiidkani waa saxiixun cala sharti muslim, yacni sanadkii muslim buu saxiix ku yahay, yacni sanadkan oo kale muslim baa saxiixiyey. culimadaasi aad bay u badan yihiin. xaakim baa kow ka ah, saxiixun cala sharti muslim buu yidhi. alxaafid ibnu xajar, ibnu lmulaqin, ibnu cabdilhaadi, alsancaani, ashawkaani iyo culimo kaloo badan waxay yidhaahdeen isnaaduhu صaxiix ama isnaaduhu cala sharطi muslim bay yidhahdeen. laakiin ishkaal baa ku sugan. musطalaxana horaa ugu maqasheen, qaacide culimmadu ay yidhaahdaan haddii la yidhaahdo sanadku waa صaxiix ama sanadka waa lagu kalsoon yahay ama rijaaluhu hiqaat, sanadka ragga ku sugani waa raggii muslim ama waa rag lagu kalsoon yahay, macnaheedu ma aha matnigu inuu saxiix yahay. way inugu soo degdegaysaa, laakiin waxaa laga yaabaa cila meesha inay timaado. ciladuna siday muxadisiintu ay tilmaamaan laa tadkhulu ila fi xadiii hiqaat, dad lagu kalsoon yahay xadiikooda unbaa la cileeyaa,
ama dadka ducafada daciifnima ku filan iyagoo uma baahna in la yidhaahdo cilla ku sugan. marka waxaan leenahay xadiidku waa cilaysan. cilladuna waxay tahay ninkan Daxaak ibn Uthman la yidhaahdo haba noqdo nin muslim xadiidkiisa ictimaaday maadaama uu yahay nin xifdigiisa culimadu ay ka hadleen. xaafidkuna uu tilmaamay sayi'ul xifdi inuu yahay saduuqun sayi'ul xifdi, culimo badanina xifdigiisa ay ka hadleen. waxaa khilaafay niman ka xifdi badan baa khilaafay oo xadiidka waxay ka dhigeen mursal bay ka dhigeen oo waxay ka soo wariyeen can Hishaam ibn Urwata can abiihi mursalan oo may sheegin Caaisha radiyallahu ta'ala anha may sheegin can Urwata mursalan bay ka dhigeen. nimankaasina waa Xamaad ibn Salama iyo ninka loo yaqaano Cabdulaziz ibn Muhammad ad-Darawardi ninka loo yaqaano. labaduba ninka loo yaqaano Daxaak ibn Uthman way ka xifdi badan yihiin, hadday isu tagaanna way ka sii xoog badan yihiin. saxiixuna waxa uu yahay xadiidku inuu mursal yahay, waa sida ay xoojinayaan imaamu Axmed, Daraqutni, ibn al-Qattan ay xoojiyeen inuu mursal yahay oo Xamaad ibn Salama riwaayadiisu inay xoog badan tahay, Caaisha inaan la sheegin. imaamu Axmed sida ibn al-Qayyim uu ka soo naqlinaya munkar buu ku tilmaamay xadiidka. Zaadul Macaadka ibn al-Qayyim markuu xadiidkan tilmaamo waxa uu odhanayaa xadiithun munkarun ankarahu al-imaamu Axmed wa ghayruhu min ahli al-cilm. waa xadiith munkara, imaamu Axmed ay waxa weeye ku tilmaameen inuu munkar yahay. ibn Turkumani oo muxadisiintii xanafiyada ka mid ah isaguna waxa uu tilmaamay xadiidku sanadkiisu inuu mudarib yahay, in aad la isugu khilaafay. matnigiisana khilaaf badan baa galay, waxba hadda ku fogaan mayno. oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kula ballamay inay maka isugu yimaadaan dhagaxa markay sii tuurato, inay mina isugu yimaadaan. riwaayaadku aad bay u kala duwan yihiin ee xagga matniga ku timi. riwaayaad badan oo macnahoodu munkar uu yahay ayaa xadiidkan lagu soo wariyay oo la tilmaamay matnigiisa. khulaasatul qowl, xadiidkani isaguna ma xoog badna. waxaa lagu cilayay Daxaak ibn Uthman in lagu khilaafay oo laga dhigay xadiidka mursal in laga dhigay. labada xadiidba halkaasa xaalkoodu taagan yahay. amaa masalada haddaynu u gudubno maalinka tobnaad dhagaxa haddii la tuuranayo, ramyu jamrati alcaqaba, dhagaxa xilligeebaa la tuuranaya, xilligeebaa laga bilaabaya, xilligeebuu qofka ka gudaya. culimmadu aad bay isugu khilaafeen. awalan waxaynu ku bilaabaynaa waxay isku waafaqsan yihiin. culimmadu waxay isku waafaqeen cadceeddu haddii ay soo baxdo waa sidii nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam. xadiiu jaabir baynu ku soo marnay, aynu soo qaadanay. xadiiu jaabir labaad oo soo socda ayaa inoo tilmaamaya, isaguna inoo sii cadaynaya. rama nabiyu sal allahu alayhi wasalam duxan, maalintii yowm naxri xilli barqaa buu nabigu tuurta calayhi salaatu wasalaam. masalada noocaasa culimmadu way isku waafaqeen. yani xilliga ugu fadliga badan ee nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam jamrat lcaqaba, maalinta ciid dhagax tuurashadeed, in laga dhigo xilliga cadceedu ay soo baxdo, iyada waa laysku waafaqsanya. masaladaa markaynu meel iska dhigno ayaa culimmadu waxay isku khilaafeen in xilliga laga horraysiiye ayaa la ysku khilaafay. xilliga laga horraysiinayaana waa laba mid: inta aanay cadceedu soo bixin laakiin waagu uu bariyay ee adaankii labaad ee salaada subax la adimay, waa xilliga labaad waa in xilliga laga sii horraysiiyo oo habeenka nuskiisa dambe laga dhigo. shaaficiyada iyo xanaabiladu iyagu waxay leeyihiin habeenka nuskiisa damboo dhan way bannaantahay. habeenka nuskiisa damboo dhan way bannaantahay. maalikiyada iyo xanafiyaduna waxay yidhaahdeen waa xilliga waagu uu bariyo, cadceeduna aanay soo bixin way bannaan tahay. laakiin cadceeddu hadday soo baxdo inay tahay xilliga ugu mudan way isku waafaqsan yihiin afarta madhabood. marka madaahibtu khilaafkaas ayaa ku sugan. waxaana ka soo baxaysa afarta madhabood inay isku waafaqsan yihiin
cadceedu intaanay soo bixin inay bannaan tahay, laakiin waqti intee leeg baa laga horraysiinayaabay isku hayeen. shaaficiyada iyo xanaabiladu way waasiciyeen oo ilaa habeenka nuskiisa dambey gaadhsiiyeen. maalikiyada iyo xanafiyaduna waxay ku joojiyeen xilliga waagu uu baryay laakiin cadceedu aanay soo bixin. culimmada qaarna waxay yidhaahdeen oo taabiciinta ka mid ah, cadceedu haddii aanay soo bixin ma ansaxayso, oo waqtigeedu wuxuu ka bilaabmaya waa waqtulijzaa, waqtiga uu gudayo waxay ka bilaabmaysaa waa xilliga cadceedu ay soo baxdo. waana sida albani raxmatullaahi calayh waxa weeye uu xoojiyey, cadceedu haddii ay soo baxdo ayuunbaa la tuuranaya. culimmada laftooda laba u qaybsamaa. qole waxay kala qaadaan dadka ducafada ah, waxay yidhaahdeen dadka ducafada ah waa loo ogolyahay cadceedoo aan soo bixin inay sii tuurtaan, iyaga waa loo ogolyahay sida axaadiistii hore laga fahmayo. amaa dadka awoodda leh waa sida ibnu cabbaas oo kale oo waday dadkii ducafada ahaa, maadaama iyagu aanay ducafo ahayn looma ogola, oo nabigu waa u diiday calayhi salaatu wasalaam, laa tarmuu xata taluca ashamsu. ibnu cabbaas iyo dadka la midkaabay u taallaa. culimmada qaar baa sidaa u kala qaaday. laakiin sidaynu hore u tilmaanay jamaahiiru ahli lcilmi inaan waxa weeye cadceedda waqtulijzaa laga dhigin baa loo badan yahay. madaahibtuna way isku waafaqeen. xadiidka tilmaamaya nahyigana waataynu tilmaamaynay hadal badani inuu ku sugan yahay, asaanida dhammaantoodna dacfi inuu ku sugan yahay. axaadiis badan oo ku sugan saxiixaynka ku sugan, bukhaari iyo muslim ku sugan ayaa waxay inoo tilmaamayaan cadceeddii oo aan soo bixin dhagax tuurasho in la sameeyey. waxaa ka mida xadiiu asmaa ayaa waxaweeye ka mida oo waxaweeye bukhaari iyo muslim ku yimi oo tilmaamaya habeenkii musdalifa salaatuleyl inay tukanaysay, kadibna saacad bay tukatay ama waqti bay tukatay, dabeedna addoonkeedii la socday cabdullah waxa weeye mawla asmaa ayaa waxa ay ku tidhi hal haaba alqamaru, dayuxu ma liibdhay oo ma dhacay. markii uu sheegay inuu dhacay ayay waxa weeye tagtay oo dhagaxii bay soo tuuratay. dabeedna waxay soo noqotay gurigeedii mina ayay ku soo noqotay, dabadeedna salaada subax bay ku tukatay. halka waxaynu ka fahmaynaa salaada subax horteed in waxa weeye ay dhagax tuurashadii ay samaysay. waxa uu ku yidhi cabdullah mawla asmaa, yaa hantaah maa uraana ilaa qad hallasna, waxaan u malaynayaa dhagax tuurashadii habeen inaynu samaynay. waxay tidhi ina rasuul allahi sal allahu alayhi wasalam adina liducun, nabigu dumarka waa u fasaxay bay ugu jawaabtay. cabdulaahi bni cumar baa la mida, xadiidka isaguna saxiixa ku yimi, dadka ducafadiisa inta uu qadimo xagga mina, inta uu u qadimo habeenka musdalifa la joogo, ayaa qaybi waxay gaadhayeen mina xilligii salaada subax. dhagax tuurashadana waa samaynayeen, cadceeduna ma soo bixin. qaybina kadib bay gaadhayeen, dhagax tuurashadana way samaynayeen. salaada subax dabadeedna cadceedu inay soo baxday iyo inaanay soo bixin labaduba waa suuragal. cabdulaahi bni cumar wuxuu tilmaamay nabigu inuu u fasaxay. axaadiia noocaasa ka gayoon mayno, aad iyo aad bay u badan tahay. waa axaadiista jamaahiiru ahli lcilmi ay waxaweeye tixgeliyeen dhagax tuurashadu inay bannaan tahay, in waxaweeye cadceedoo aan soo bixin in la tuurto. xadiidka ibnu cabbaasna hadal badan baa ku sugan. culimmada qaar waxay yidhaahdeen haddii laba saxiixiyo oo lagaba soo qaado inuu sugan yahay xadiidkaasi, aynu axaadiista kale badan u waafajinno, waxaynu ku qaadaynaa nahyiga karaahiyaynu ku qaadayna, in xilligaa la tuurtana inuu yahay xilliga ugu wanaagsan, waana xilligii nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam baa lagu qaaday. yacnii xilliga cadceedu aanay soo bixin in laga fiican karaahiya inay tahay, xilligaa haddii la tuurtana inay tahay xilliga ugu wanaagsan baynu ka qaadanayna. axaadiista kalena waxaa laga qaadanaya cadceedoo aan soo bixin in la tuurtaa inay bannaan tahay. sidaasaa loo jamcinaya. waa haddii laba xoojiyo. taxaawi waxa uu leeyahay xadiidka cabdulaahi bnu cabbaas
cid culimada kamida oo tixgelisay lama hayo cid tixgelisay waxa weeye lama hayo culimaduna waxay baneeyeen cadceedo aan soo bixin in la tuurta ayay baneeyeen laakiin way jiraan cid waxa weeye tixgelisay laakiin waa laga badan yahay sida awgeed bacdu ahli ilmi ijmaac bay ku soo naqliyeen laakiin ijmaacaasi ma sugna oo khilaaf ba ka horeeyay ama xadiiث ummi salama isagu wuxuu ka mid yahay axaadiista banaynaysa qoraxdo aan soo bixin in la tuurto oo laftiisa waataynu tilmaanay in hadal badani uu ku sugan yahay marka haddii isaga la daciifiyo sida a'imaduba ay u daciifiyeen imaamu axmed iyo daaraqudni iyo ibnu abulxasan ibnu lqataan iyo a'immada la midka ah waxaynu daliishanaynaa axaadiista kale ayaynu daliishanaynaa xadiiثi ummi salamana waa xadiiث aan xoog badnayn axaadiista kalena inagaga filan masalada in loo daliishado khulaasada haddaynu soo duuduubno waxaynu leenahay maalinkaa tobnaad dadka ducafada ah iyaga waa loo ogolyahay habeenka qaybtiisa dambe inay sii turtaan waa loo ogolyahay ama dadka aqwiyada ah in waxa weeye ay turtaan xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ah xilliga cadceedu ay soo baxday ay ku dadaalaan haddii ay ka horaysiiyaan oo waagu markuu baryo salaada subax adaankeeda marka la gaadho cadceeduna aanay soo bixin xilligaa haddii ay tuurtaanna waa sida jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan ay qabaan iyaduna waxa weeye waa mid bannaan wey laakiin xilligaa in laga sii horaysiiyo waxa weeye dadka ducafada ah ayuunbay gaar ku tahay oo waxa weeye loo fasaxayaa habeenka waxa weeye qaybtiisa dambe waxyaabahay culimmadu kusii xoojiyeen waxaa ka mid a labadii xadiid ee hadda aynu soo qaadanaynay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa xadiiu caaisha qisada sawda inuu musdalifo habeenkii qayb ka mida oo u fasaxay inay sii dhaqaaqdo xagga mina iyo ibnu cabaas xadiidka uu leeyahay dadkii ducafada ah ayaa la fasaxay musdalifo inay habeen ka dhaqaajiyaan labadaba ujeedadu maxay tahay ujeedadu ma aha musdalifo inay ka tagaan minana ay tagaan kadibna ay sugaan inay cadceedu soo baxayso ee waa inay dhagaxa tuurtaan weeye waayo mina camalka koowaad ee laga qabanaya waa dhagax tuurasho marka kaa haddii loo diido oo la yidhaahdo suga intay cadceedu ka soo baxayso waxaa ka dhalanaysa inaan waxba loo faa'iideyn waayo musdalifa inay u hoydaan habeenka qaybtiisa dambe ay joogaan ay ku nagaadaan iyo inay mina sii aadaan waa isku macno wey muhimmadu waxay ahayd mina inta ay aadaan dhagaxa inay turtaan waxyaabahay culimmadu ku xoojiyeen khulaasat lqowl waxay leenahay sidaa loo badan yahay ayaa waxa weeye saxiixa xadiidkan cabdulaahi bnu cabaasna ma xoog badnaa haddii la yskuba xoojiyo oo la ysku kabkabana waxaa lagu qaadaya sunnanimo ayaa waxa weeye lagu qaadaya وعن عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه قال وxau قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم man شhahida qofka yimaadee ka soo qayb gala صalaaتna salaadayadan haadihi tana yani waxa uu uga jeedaa nabigu bilmusdalifa salaadii subax ee musdalifa lagu tukanay fawaqafa istaaga macanaa anaga macayaga istaaga xataa nadfaca ilaa aanu ka dhaqaaqayn waa salaadii subax ee musdalifa waa tii nabigu markuu tukaday uu isu taagay duco ilaa ay ka cadaanaysay fawaqafa macanaa macayaga nala istaaga xataa nadfaca ilaa aanu ka dhaqaaqayno oo xagga mina aanu uga dhaqaaqayno waqad waqafa walxaal qad waqafa uu yahay mid istaagay bicarafata carafana istaagay qabla dalika intaa horteed laylan habeen aw nahaaran aba maalin istaagay faqad tama taan buu noqday xajuhu xajkiisu waqada waa baabiiyey oo waa dhammeeyey tafatahu wasakdiisana waa iska dhammeeyey tafat waxaa la yidhaahdaa qofku markuu muxrimka yahay cidiyaha ayaa ku baxaya waayo cidiyaha inuu iska jaro lama ogolayn timaha inuu gaabiyo lama ogolayn timaha ku baxaya marka waxyaabaha noocaasoo dhan inuu iska baabi'iyo oo iska zuuliyo
ayaa waxa weeye u bannaanaanaysa. waqada yani waa gutay oo waa zuuliyey tafathahu cidiyihii ku baxay iyo timihii ku baxaya wixii la midka ah. rawaahu lkhamsa waصaxaxahu tirmidiy wabnu khusayma. xadiidkan sanadkiisu waa صaxiix. ismaaciil bn abi khalid almakhzumi can الshacbi can curwa oo صaxaabiga ah ayaa soo warinaya. ismaaciil bnu abi khalid waa nin iqa ah, xadiikiisuna bukhaari iyo muslim buu ku sugan yahay. shacbina waa caamir ibni sharaaxiil ashacbi, waa imaam taabici oo jaliil oo macruufa wey. sidaa awgeed imaamu tirmidi waxa uu ku tilmaamay xasanu صaxiix inuu yahay. ibnu khusayma iyo xaakim iyo daara quطni ibnu lcarabi almaliki albani culimo badan oo kalena waa صaxiixiyiin. xadiiku waa xadii صaxiix, masaa'il badan oo muhimu inoo tilmaamaya. matniga haddaynu soo koobno, nabigu waxa uu leeya calayhi salaau wasalaam, qofka salaada subax musdalifa nagula tukada ka horna carafo istaagay ama maalin ama habeen kay doonta ha noqoto, wuquufkii carafana laga helay ama habeen ama maalin ha istaago, qofka noocaasa xajkiisu waa taan. masaa'il muhima oo ku saabsan carafa xilliyada la istaagayo, waayo habeen iyo maalin baa la tilmaamay, oo ku saabsan musdalifa wuquufkeedu muxuu ku xasilaya ayaa xadiidkan laga faa'iidaysanaya. waana masaa'il xajka lafdhabar u ah oo waxa weeye aad iyo aad u culus. masaa'isha waxaa ka mida meesha musdalifa la yidhaahdo goobjoog in laga ahaado. man shahida salaatana haadihi, yani waxaa looga jeedaa qofka musdalifa soo gaadha fawaqafa macana, nabigana musdalifa goobjoog kala noqda, waxaa la yidhi faqad tama xajuhu, xajkiisu taam buu noqday. halkaa maxaa laga fahmaya? haddii aanu musdalifa ka soo qaybgelin oo hoyaatinka musdalifa u dhaafo, anna xajahu laysa bitaam, xajkiisu inaanu taam ahayn. inaanu taam ahayn maxaa looga jeeda? xajku kama ansixin miya oo rukni baa ka maqan? culimada qaar baa sidaa ku tegay. mise waxaa looga jeedaa xajkiisa waxbaa ka dhiman oo waajib baa ka maqan oo dhiig buu ku kabaya? labada qowlba waa layidhi. jamaahiiru ahli lcilmi waxay u badan yihin oo madaahibtu ay ku tageen waa 4 madhabood, in waxa weeye ay tahay waxa weeye waajib inay tahay. haddii qofku uu ka tagana dhiig uu ku kabayo, yani faqad tama xaju, xajkiisu taam buu noqday haddii musdalifa uu ka soo qayb galo. waxa weeye wax dhiigana laguma laha, xajkiisuna waa taam. bacdu asalaf iyagu waxay idhaahdeen waa rukni. taabiciin badanoo waaweyn baa ka mida. calqama ibnu yaziid oo ardaydii ibnu mascuuda ayaa ka mida. waxaa ka mida alswad oo isaguna talaamiidii ibnu mascuud ka mida. shacbi iyo ibraahim ibnu yaziid annakhaci, alxasan, waa taabiciin waaweyn wey. dhammaantood waxay idhaahdeen musdalifo in loo hoyda waa rukni bay idhahdeen. haddii laga tagana xajku ansixi maayo. laakiin sida xooga badan waa qowl jumhuur wey. jamaahiiru ahli lcilmi sida ay qabaan baa xoog badan. xadiidkana waxaa looga jeeda, ujeedadiisu ay tahay in la tilmaamo in musdalifa laga soo qayb galo. faqad tama xajuhu waxaa lagu cadaynaya, axaadiista kale ayaa lagu cadaynaya. xadiidka odhanaya alxaju waxa weeye carafa, waxaa riwaayaadkiisa ku yimi xajka dhammaantii waa carafa. waxaa riwaayaadka qaar ku yimi qofka carafa habeenkii wax ka mida ka soo gaadhay inuu waxa weeye xajkiisu uu saxiix yahay. culimmaduna waxay ka qaateen dilaalat lishaara, dilaalada la yidhaahdo ee ah daliil mas'alo aan loo jeedin inuu tilmaamo. xadiidkaasi wuxuu tilmaamaya carafa habeenkeeda wax ka mida haddii laga soo gaadho, man adraka carafata laylan, habeenkii wax ka mida saacadaha ugu dambeeya ama daqiiqadaha ugu dambeeya carafa hadduu ka soo gaadho ku nagaado, habeenka oo dhanna inuu joogo shardi maaha, waqti ka mida inuu ku nagaado wey. daqiiqadihii ugu dambeeya carafa hadduu ku nagaado, waxa weeye inay ka ansaxaysa xadiidkaas inuu cadeeyey.
waxaa laga faa'iidaysanayaa qofka noocaasi musdalifa inaanu ka soo gaadhin. xadiikaasina wuxuu tilmaamay xajkiisu inuu saxiix yahay. marka jamaahiiru ahli lcilmi adilo badan oo xadiikaasi uu ka mid yahay ayay daliishanayaan. ta kale waxay yidhaahdeen waxaa la ysku waafaqsan yahay xadiikan haddii la yidhaahda ha la qaato, qolada xitaa qaadatay inaanay sidiisa u wada qaadan. oo man shahida salaatana haadihi faqad tama xajuhu ayuu xadiiku tilmaamaya. cidina may odhan salaada subax nabiga ha lagula tukado, oo qofkii fiidka yimi ee habeenkii oo dhan joogay ee salaadii subax inta aan la tukan ka baxay, waa la ysku waafaqsan yahay qofkaasi inuu waajibkii gutay. laakiin nabiga inuu la tukado salaada subax cidina may odhan. qoladan waajibinaya hoyaatikay ka hadlayaan, laakiin may odhan salaada subax in nabiga lala tukada ayaa waajiba, may odhan. marka iyaga laftigooda ayaa xadiidka daahirkiisa ka tegay. masalada raajixu waa sida loo badan yahay, almabitu bimusdalifa waa inuu waajib yahay. way jiraan qolo odhanaya waa sunne, haddii laga taga xitaa dhiig layskuma laha, laakiin kuwa qowlkooduna ma xoog badnaa. masalada labaad waxay tahay meesha musdalifa la yidhaahdo hoyaatinkeedu waa maxay? jamaahiiru ahlilcilmi waxay yidhaahdeen habeenkii qayb ka mida waa in loo hoydo. xanafiyaduna waxay leeyihin habeenkii in loo hoydaa waa sunne. salaada subax marka la tukado ilaa ay ka cadaanayso in la ducaysto waa tii nabigu sameeye calayhi salaatu wasalaam, iyada ayaa waajiba. yani culimmadii yidhi almabitu bimusdalifa ayaa waxay u qaybsameen musdalifa waxa waajibka ahi ma in loo hoyda, mise waxa weeye waa in subaxeeda intaanay cadceedu soo bixin lagu cibaadaysto. xanafiyadu waxay qaateen qaybta subax, jamaahiirtuna waxay qaateen habeenka ayay qaateen. sida jamaahiirta ahlulcilmigu ay qabaanna ayaa waxa weeye saxiixa. maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada ayaa xoog badan. musdalifa inta haddaynu ku dhaafna hadalkaasaa ku sugan. xadiidku wuxuu inoo tilmaamay meesha carafa la yidhaahdo habeen iyo maalin haddii mid la istaago inay ansaxayso. habeen iyo maalin labadaba khilaaf baa ku sugan. waxaa la ysku waafaqsan yahay sida nabiga calayhi salaatu wasalaam inay tahay sida ugu mudan. sida nabiguna waxay tahay maalinkii in uu istaagay gelinkeeda dambe bacda zawaal, habeenkii wax ka midana uu joogay. intaa qofku hadduu sameeyo waa la ysku waafaqsan yahi. afarta madhaboodba waa isku waafaqsan yihi. waa bacda zawaal ilaa habeenkii qayb ka mida laga gaadhay. waa maalinkii oo gelinka dambe ah iyo habeenkii wax ka mida intay doonta ha noqoto. intaasi waa muttafaq wey. laakiin waxaa la ysku hayaa intaa wixii ka badan. waxaa la ysku hayaa awalan maalinka xaggeeda haddaynu ka eegno, xagga maalinka markaynu ka eegno, maalinkoo keliya ma lagu kaaftoomaya? waayo xadiidku wuxuu tilmaamaya waqad waqafa bicarafata qabla dalika laylan aw nahaaran. awduna qofku inuu khiyaar leeyahay baa inta badan laga fahma. ama maalin buu istaagay ama habeen buu istaagay. idan maalin keliya haddii la istaago maxay noqonaysa? maalin keliya haddii la istaago khilaaf baa madaahibta dhexdooda u dhexeeya. waxay leeyihiin nimanka loo yaqaana maalikiyadu hadduu istaago waxa weeye maalin keliya xajkiisu ma ansixin. waxa dhaafay ruknigii waxa weeye carafa ayaa dhaafay. ruknigana waxa u asala bay leeyihiin maalikiyadu habeenkii oo keliya hadduu istaago way ka ansaxaysa. amaa haddii maalin keliya uu istaago habeenkii wax ka midana aanu istaagin, xajkii waa dhaaf. meel adag bay ka istaageen, iyagoo xagga habeenkay xoojiyeen. waa maalikiyada markaynu maalinka ka hadlayno. jamaahiiru ahlilcilmi way ku khilaafeen oo waxay yidhaahdeen haddii waxa weeye qofku maalinkii wax ka mida uu istaago waxa weeye xajkiisu waa ansaxaya. waa jamaahiiru ahlilcilmi, hadday tahay xanaabilo, hadday tahay xanafiyo, hadday tahay waxa weeye shaaficiyo. waa sida saxiixa. masalada markaynu halkaa kaga gudubno ee qowlka maalikiyada laga yimaado,
ayaa waxa la isku sii khilaafay intii soo hadhay isku khilaafeen habeenkii wax ka mid ah haddaan lagu darin dhiig ma lagu kabaya mise looma baahna. halkaynu joogno waa la fahmayaa baan filay. maalinkii baynu joognay, maalikiyadu waxay yidhaahdeen maalin keliya haddii lagu kaaftooba xajku ma ansaxay. inta kale waxay yidhaahdeen maalinkii waa ansaxaya, laakiin waxaynu taagannahay maalinka lafteeda haddaan habeenkii wax ka mida lagu darin. xanafiyada iyo xanaabiladu waxay yidhaahdeen waa in dhiig lagu kabaa, yani habeenkii wax ka mida in la joogaa waa waajib bay yidhahdeen. shaaficiyaduna waxay yidhaahdeen waa sunne, nabigaa sameeye calayhi salaatu wasalaam. in waxa weeye la sameeya waa fiican tahay, in laga dhaqaajiyaana waa fiican tahay gabalkoo aan dhicin. sida shaaficiyadana xoog badan, waayo wax sii xoojinaya waajibnimo sii xoojinaya ama dhig in la waajibiya wax tilmaamaya lama hayo. marka qowlka shaaficiyada ayaa xoog badan, in habeenkii wax ka mida in lagu kabo inaanay waajib ahayn, haddii laga tagana inaan dhiig lagu kabay. xanafiyada iyo laakiin xanaabilada qaba. maalinkii weli kamaynaan dhammaan, hal masale inoogu hadhay. maalinka laftiisa la waajibinayo ee waxa weeye carafo la istaagayo, ma maalinkoo dhan baa mise waa qayb ka mida? xadiidkani waxa uu tilmaamay qayb ka mida ayuu tilmaamay. wuxuu tilmaamay maalinkoo dhan. waqad waqafa bicarafata qabla dalika laylan aw nahaara, maalin iyo habeen kuu doona ha istaago. maalintuna waxay ka bilaabmataa markay cadceedu soo baxdo, maalinka la ysku waafaqsan yahi. waagu inuu baryana waa la yidhi, laakiin markay cadceedu soo baxdo in maalinkii uu soo galay waa la ysku waafaqsan yahi. nabiguna wuxuu tilmaamay maalin in la istaago. idan qofku maalinkaa hadduu istaago, maalinka noocaasa maalinnimo ma ugu filanta sida jamaahiiru ahlilcilmi ay qabeen? waxaanu leenahay xanaabilada banneeyey maalinkaasi inuu yahay maalinta labadeeda gelin, oo bimacnaa subxii hadduu istaago inay waxa weeye maalinkii loo xisaabinayo. barqadii buu istaagay, kadibna waa ka dhaqaajiyey, waa ka gudaysaa, laakiin waxaa laga doonayaa maxay? dhiig baa laga doonaya. waayo wataynu hadda soo tilmaamayn xanaabiladu inay leeyihiin habeenkii qayb ka mida in la gaadhsiiyo oo maalintii lagu lado in waxa weeye ay waajib tahay, haddii laga tagana dhiigi lagu kabayo. marka xanaabiladu waxay qabaan maalinkaasi inuu noqonayo barqadii xitaa inuu noqonayo. jamaahiiru ahlilcilmi waa inta soo hadhay, waana sida loo badan yahay. hadday tahay maalikiyo iyo hadday tahay xanafiyo iyo hadday tahay shaaficiyo, dhammaantood waxay leeyihiin maalinkaasi wuxuu ka bilaabmaya, zawaalku ka bilaabmaya. salaada duhur marka la adimo ayaa waxaa bilaabmaya, xilligii carafa ayaa bilaabmaya. ka hor qofku hadduu istaago kadibna uu ka baxo, xajkiisu ma ansixin. alxaju carafa waa dhaafta. waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam, sidaynu xadiidkii jaabir aynu ku soo dhaafnay, markuu yimi meesha namiro la yidhaahdo, waxa weeye teendha looga sameeyey, subaxii oo dhanna halkaasuu jooga. markii la gaadhay, zawaalka la gaadhay buu wuxuu galay carafa gudaheeda. halkana waxa laga qaatay carafa xilligeedu inuu ka bilaabmayo, waqtiga zawaalka inuu ka bilaabmayo. inta kale nabigu dibadda ayuu ka jooga calayhi salaatu wasalaam, xuduudka dushiisa ayuu fadhiyay nabigu calayhi salaatu wasalaam. haddii xilligaa subax ama qabla zawaalku uu waqti carafa noqon lahaa, nabiga wanaagga cidii ugama dheerayseen, nabigu waa geli lahaa. waqtiga noocaasana waa badsan lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam. laakiin waxa uu sugay inta zawaalka laga gaadhayo. halkaa waxay culimmada badankoodu ka qaateen carafa maalinka la sheegaya waa bacda zawaal wey, qabla zawaal xajku ma ansaxayo, waana sida xooga badan wey. markaynu isku soo duuduubno, carafa mowqifkeed wuxuu ka bilaabmayaa sida saxiixa ah, zawaalka ayuu ka bilaabmayaa ilaa uu gabalku ka dhacayo. marka qowlka shaaficiyada haddii lagu socdo, markuu gabalku inta aanu dhicin, haddii qofku uu ka baxo, waqtiguna bacda zawaal uu yahay, gelinkii dambe uu yahay, qofka xajkiisu waa taam wey.
xanafiyada iyo xanaabiladuna waxay leeyihiin gabalku haddii aanu dhicin oo gelinka dambe uu joogo ama gelinka horeba uu joogo habeenkii wax ka midana aanu joogin waxaa laga doonayaa dhiig baa laga doonaya, xajkiisuna waa saxiix. maalikiyaduna waxay leeyihiin gelin dambe haddii uu joogo habeenkii wax ka midana aanu joogin sidaana uu ku tago maalin uu ku kaaftoomo xajkiisu ma ansixin bay leeyihiin. xajkiisu waxa weeye ma ansixin, waayo habeenkiibaa tixgelinta leh. saxiixuna waxa uu yahay habeen marka la tixgelinaya waa haddii habeennimo la yimaado. qofku hadduu habeen yimaado ayaa habeenka loo xisaabinaya. wuxuu yimi fiidkiibuu yimi, habeenka qaybtiisa dambe ayuu yimi, habeenkaa ku filan laylan wey. hadduu maalin yimaadana maalinkaasi waa maalinta gelinkeeda dambe. waajibna maaha sida shaaficiyadu ay qabaan ee xooga badan. hadduu gelinkii dambe maalinta uu joogo habeenkii wax ka mida inuu joogaana waajib kuma aha, sida waxa weeye xooga badan. sidaas ayaynu masaladaasna kusoo khulaasaynayna, laakiin waa arkaysaan khilaafkeedu aad buu u xoog badan yahay. ficilka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo axaadiis kala duwan dawaahirtoodana waa la ysu daliishanayaa, laakiin sida ay shaaficiyadu ku tageen maalin iyo habeenba marka la ysku soo duuduubo ayaa aqwaasha waxa weeye ugu xoog badan. وعن cumar radi allahu tacaala canhu ina almushrikiina gaaladu kaanuu waxay ahaayeen laa yufiiduuna kuwa aan ka foofin oo aan ka dhaqaajin meesha musdalifa la yidhaahdo xataa tadluca shamsu ilaa ay qoraxdu ka soo baxdo. wayaquuluuna waxay odhanayeen ashriq habiir, buurta habiir la yidhaahday gal cadceed soo baxa gal. ashriq bimacnaa udkhul fii shuruuqi shamsi, xilligii cadceeddu ay soo baxaysay gal, yacni cadceeddu waxa weeye ha soo baxdo. ashriq yacni gal xilliga shuruuq, cadceed soo baxa gal. habiiru aya habiiru, buurta habiir la yidhaahdo. waina nabiya sal allahu alayh wasalam nabigu khaalafahum waa khilaaf, uma afaada nabigu waa dhaqaajiyey ama cumar waa dhaqaajiyey, labadaba waa la yidhi qabla an tadluca shamsu cadceeddu intaanay soo bixin. xadiikani masale aynu soo marnay buu inoo tilmaamayaa. masaladaasi waxay tahay xadiiku jaabir wuxuu inoo tilmaamay musdalifa marka salaada subax lagu tukado in lagu nagaanayo ilaa waagu uu ka cadaanayo, waxaana laga dhaqaajinaya cadceeddu intaanay soo bixin. sunnadu waa sidaas. wuxuu xadiikani inoo tilmaamaya gaalada in lagu khilaafayo, waayo gaalada caadadoodu waxay ahayd markay xajiyaan xilligii islaamka hortiya hadday xajiyaan musdalifo kamay dhaqaaqayn ilaa ay cadceeddu soo baxdo. gaalada in la khilaafaana waa qasad sharcigu uu leeyahay in la daneeyo khilaafka waxa weeye gaalada la khilaafayo. marka ta noocaas ayuu xadiidku inoo tilmaamay. xadiidka inoogu xigaha inoo dambeeya insha allahu tacala. wallahu aclam wsal allahu waslama cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi waslem. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.